بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. waxaan baaq u diraynaa muxsiniinta Soomaaliyeed oo ugu diraynaa maanta masaajidka Bilaal ee ku yaala degmada Jowhar ee gobolka Shabeellada Dhexe oo dhismihiisa yani si fiican looga qayb qaatay meel fiican maraya baahida mar walba u baahan yahayna dadku ay soo sheegaan si ajirkaas looga wada qayb qaato. sidaas daraadeed waxaan idin soo gudbinaynaa idinku aad u mahadsan baahida maanta taagan ay tahay in laga soo jawaabo si dhismihii masaajidka uu sii socdo. waxaa ka mid ah 8 baawarkan isjiidka loo yaqaano ama ina tareega oo jaay lagu qaado oo sidaas yani uu yahay degmada Jowhar waxyaabaha lagu isticmaalo. marka 8 kaas ina taree oo jaay ah ayaa loo baahan yahay oo qiimaha uu yahay halkii baawur uu yahay 1310. sidoo kale waxaa loo baahan yahay 50 kintaal oo biraha shubka la yiraahdo oo halkii kintaal uu yahay $60. waxaa kale loo baahan yahay qalabka korontada iyo biyaha dadka muxsiniinta qofkii qaadanaya oo korontadaasi inta ay iftiiminaysa quraan lagu akhrin ama lagu tukan ajirkeeda uu iska leeyahay weysada iyo biyaha qalabkaas la gelinayana qofkii baxsada weysadaas inta ay socoto dadku ay ku weysaysanaan ajirkooda uu leeyahay. waxaa kale loo baahan yahay dariishadaha loo yaqaan aluminiyumka oo masaajidka in la geliyo ay tahay mutulaalka masaajidka gudaha loogu dhajinayo oo runtii aad iyo aad muhiim u ah oo yani bilicda masaajidka soo saaraya iyo karbedka masaajidka kor iyo hoos ayaa loo baahan yahay. marka dadka muxsiniinta ah waxaan ugu baaqaynaa magaalada Jowhar waa magaalo runtii aad iyo aad yani loo yaqaano dad badan ay degan yihiin dad badan inay ku tukadaan masaajidka yani la rajaynayo oo ay tahay dadka muslimiinta ee Soomaaliyeedna dhaqan waxa uu ah yani sida guryahooda gaarka ay ugu dadaalaan inay beedka ilaahayna ugu dadaalaan oo u qurxiyaan halkaas masaajidkaas marka runtii la qurxinayo sida casriga loo dhisaayo ayuu ka socdaa. marka waxaan leeyahay dadka Jowhar jooga iyo dadka banaanka jira iyo dadka magaalada Muqdisho jooga iyo dadka Soomaaliyeed oo dhan oo kilibkan uu gaarayo in ay la soo xiriiraan telefoonka masaajidka laga xiriiri karo oo ah eber 655 69 eber 29 ama EV Plus sida loo yaqaano oo loogu ururiyo tabarucaadka oo telefoonka lambarkiisu uu yahay eber 64 62 10 yani eber 64 62 10 marka telefoonadaas ayaa gudigana laga xiriiri karaa. ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaan uga baryaynaa qof kasta oo ka qayb qaata ducadii malaa'ikta ugu ducaynaysay qofkii wax bixiya ilaahay inuu ugu aqbalo oo aan dhahayno Allahumma a'ti munfiqan khalafan ilaahay qofkii wax bixiya bedelkiisa si waana la hubaa in la siinayo horena waa loo tijaabiyay masaajidka inta uu soo gaarin wuxuu ku soo gaaray dad ahlu khayr ah oo ka qayb qaatay inta dhimanna waxaan u rajaynaynaa insha Allah ta'ala dad ahlu khayr oo si dhameystira in loo helo hada wabillahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.